Asalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa cuntooyinka la siiyo ilmaha marka ay shubmayaan ama ha ahaada naasnuug ama yuusan ahaan ha ka weynaada marka cuntooyinka la siiyo marka ilmaha ay shubmayaan oo kale ayaa muuqaalkan kaga hadli doonaa. Soo dhawaada. haddii ay tahay markii kugu horeysa ana soo booqata soo dhawaaw gacmo furan ku soo dhawaaw subscribe noo saar gambalaalkana furo si muuqaalada cusub ay ku soo gaaraan. haddaa hore noola joogtay oo familka ka mid tahayne like noo saar asxaabtaadan u sii share garay. soo dhawaada. waxaan rajaynayaa maalintaada inay ku tahay maalin qurux badan insha Allah ilaahina kaaga dhigo. waxaan u kala qaadaynaa cuntooyinka la siinaayo maxaa la dhahaa maxay ka kooban yihiin iyo maxaa la cuntooyinka la siinaayo shuruudaha laga rabo inay maxaa la dhahaa ay ku dhameystiran yihiin maxay tahay. cuntooyinka cunug la siinaayo markuu shubmaayo waxaa waaye horta cunug haddii uu 6 bil ka badan yahay kale oo cunug cunta oo bilowdo kale waxaa haboon cunto maxaa la dhahaa dheefshiidka ee u fududahay maxaa la dhahaa shiiditaankiisa oo jilcan inaa siisid waa maxaa la dhahaa cuntooyin jilcan dheefshiid ku fududahay inuu shiido. cuntooyinka aad siinaysidna maxaa la dhahaa waa inay ahaadaan cuntooyin nafaqo ahaan dhameystiran si cunuga maadaama uu shubmaayo maxaa la dhahaa difaaca jirkiisa kor u soo qaado oo cunuga difaaca jirkiisa uu xooganaado. waxyaalaha siinaysid waa inay ku jiraan biyo maxaa la dhahaa sawaa'il inay ku jiraan waaye iyo macaadin laga helayo leeyahay cunuga markuu shubmaayo macaadin badan ayaa jirkiisa ka baxday ee ugu horeysa potassiumka marka macaadintaas waxyaalihii bedeli lahaa jirka ka baxday in macaadin la mid ah uu jirka helo waaye marka biyaha la siinayo biyaha oo macaadin la inay ahaadaan waaye cunuga korkiisana waa in maxaa la dhahaa jafaaf uusan naqan jafaaf waxaa la dhahaa in cunuga korkiisa aysan qaleel naqan biyihi aysan ka dhamaanin marka cuntooyinka cunuga siinaysid waa in intaas ku dhameystiran yihiin. cuntooyinka la siinayo maxay tahay haddii cunugaada uu naasnuug yahay oo weli uu naaska ku jiro cuntooyinkana aa u bilowdo 6 bil uu ka weyn yahay waa in cuntooyinka maxaa la dhahaa soo sheegi doona asiisa asaga ilmaha waaweyn way ka siman yihiin laakiin haddii cunugaada 6 bil uu ku yar yahay naasnuuga waa inaa u badisa leena naaska waxaa ku maxaa la dhahaa caanaha naaska aad u jilcan inuu dheefshiidku u fudud yahay inuu shiido. midda labaad difaaca jirka ilmaha kor ayay u qaadaan caanaha naaska waxaana ku jirta maado yareynaysa shubanka ay caanaha naaska hooyada laga helaa. marka Soomaalida inta badan waxay dhahaanba cunuga markuu shubmaayo moostan lama siiyo naaskan lama siiyo shubanku sii badiyaa waana cagsi cunuga markuu shubmaayo jirkiisa potassium badan ka baxay wuxuu u baahan yahay inaa potassium maxaa la u helo marka cuntooyinka uu keen lahayna waxaa ka ah mooska cunugana waa hadii oo ilaa 2 sano u jira xataa uu naasnuuga oo caana siinaysa waa ina caanaha u yareysa hadii ka soo qaad maalintii 120 marka uu qasayso oo maalintii 24 saacadood 5 mar siinayso kale waa ina 5 mar ka soo gaabisaa 3 mar uga dhigtaa ama 2 mar uga dhigtaa hadii maalintii cabitaanka caanaha uu 24 saacadood uu cunuga 9 jeer qaadan jiray waa ina 5 mar ku soo koobtaa cunuga maalintii inta uu caana qaadan jiray waa ina kala bar asiisa bedelkeedana naaska ugu buuxisa adiga wax badan cunta wax badan ay cabtaa si caana naaska cunuga ku filan oo u helo oo maxaa la dhahaa uu naaska ugu helo maxaa la dhahaa difaaca jirka iyo shubankan inuu ka yaraado cunuga naas loo badiyaa. midda kale waxaa waa in ilmaha cabitaano loo shiido waaye maxaa la dhahaa cabitaanada u shiidaysid ma ahan kuwa maxaa la dhahaa caloosha socodsiiyahay haddii cunugaada calooshiisa ay jilcaneed oo kale cabitaano waxaa jira caloosha socodsiiyahay oo kale waxyaalaha fibers kale ama aliyaad qiida iyo waxa la dhahaa maxaa la dhahaa cabitaanada ku jiraan oo kale maxaa la cuntooyinka laga helo inaadan cabitaan uga dhigin laakiin hada ka soo qad batiiqo kale maxaa la dhahaa caloosha socodsiiya maxaa la dhahaa cuntooyinka waxyaalaha cabitaanada laga sameeyo caloosha socodsiiya inaadan cunuga cabitaan uga dhigin laakiin waxyaalaha caadiga sida maxaa la tufaax oo kale maxaa la hadii cunugaad uu yar yahay kale maxaa la dabka saartid wax yar hufisid u shiidid hadii cunugaad cunug weyn yahay aad tufaax u dhibtid aad tira tufaaxan cun maxaa la shubanka xoogo uu ka yaraana ilmaha siiyo marka ina cabitaana u shiidid cunuga maxaa la cabitaanada u shiidisid moos ina ugu jirtid hadii uusan cuni karin caadana cuni karin haduu cuni karna mooska asiisid leena cunuga markuu shubmaayo jirkiisa waxa ka baxa maadadan loo yaqaan potassiumka waxay ku badan tahay oo laga heli karaa mooska. marka dhaqaatiirta iyo dhamaan caafimaadku wuxuu qabaa in cunuga markuu shubmaayo potassium fiican jirkiisa uu ka baxay mid fiican ugu bedeshaa oo mooska asiisa maahan dhaqanka Soomaaliga ina dhageysata cunuga mooska ka deela leeyahay waa ina cunuga cabitaano fiican asiisa cabitaanada asiinaysid waa inaysan ahaan kuwa dibadaha ka imaado caagta ku jiro maxaa la dhahaa casiir waa leeyahay kale casaayirka dibadaha ka imaado inaadan siinin cabitaanada gaasaad kale oo maxaa la sida Coca-Cola iyo Pepsi iyo 7 Up oo kale waxyaalaha aashitada leh inaadan siinin waaye. marka hore waa la dhihi jiray laakiin daraasad cusub oo caafimaadka mar dhow soo saar waxay leeyihiin shubanka maadooyin badan ayaa laga helaa cabitaanada gaasaad kale marka cabitaanadan oo kale aashitada leh inaadan ilmaha siinin kuwa dibadaha laga kano diyaarsan inaadan siin mid fresh ah adiga u shiido cunuga asiisa.
sidoo kale maxaa lahaa ilmaha marka shumayaan oo kale waa inaa waxyaalaha saliidda leh iyo subaga leh iyo dufanka leh ka ilaalisaa maxaa lahaa u sameysana maraq waxaa ka sameyn kartaa oo kale qudaara ka sameyn kartaa oo qudaara inta dabka saarta biyo ku darta aad karisid ka miirtida biyaha siin kartaa hadaa rabta doorada maraq ugu sameyn kartaa oo hilibkeeda iyo lafaheeda dabka inta saarta maraq ugu sameyn kartaa marka maxaa lahaa waa inaa laakiin maraqaas aad siinaysid cunuga waa inuusan lahaynin wax saliid ama dufan ah dhan aysan lahaynin borotiinad inaad siisid cunuga kaaga baahan yahay borotiinadka aad siinaysid ka soo qad hadii aad door inaad qatina siisid doorada aad siinaysid waa inaysan maqaar lahayn oo kale maqaarka laga soo fiiqa liana maqaarka doorada dufan badan ayay leedahay umana fiican cunuga markuu shumayo laakiin caadi ahaan doorada cunuga way u fiican tahay waa markay maqaar la'aanta tahay ama maxaa lahaa malayga kale biyo uu ka saliana malayga dufan ma lahan maxaa lahaa haduu leeyahna way ku yar tahay marka malayga kale ina biyo uu karisid cunuga asiisid wax saliid lana aadan u dhaweynin oo kale waxyaalaha nashawiyaadka karbohaydraytka ila asiisid sida cunuga haduu shumayo kale rootiga xoogo yar calooshin uu adkeeyo badan tahay baradhadana caloosha way adkeysaa oo caadi ahaan marka uu ilmaha la siinayo caafimaad qaban xataa cunuga calooshiisa adag tahay baradhada looma badiyo sababtoo ah ayada waxay sameysaa calool adeeg marka baradhada kale cunuga haduu shumayo baradhada biyo uu kari karta aad siinay ayadoo wax saliid iyo qudaar ah aadan u dhaweynin oo inta baradhada biyo ku karisid ayad cunuga siin kartaa liana caloosha adkeysa bariiska kale biyo uu karinaya isagana caloosha adkeeya maxaa lahaa iyo ina rootiga waxaas asiisidoo kale ayadan ilmaha calooshooda ay adkeysan faakihooyinka siinaysid ko waxa ka ah potassiumka marka waxa laga helaa moska kale waa ina moska siisaa dhaqanka Soomaaliga aad iska deysa maxaa lahaa tufaaxna waa ina maxaa la cunuga hadii uu sidiisu cuni karo uu cuna hadii uu sidiisu cuni karin anta biyo ku karisa u shiid cunugi asidaas ku siisaa cuntooyinka marka maxaa laga ilaalinaa cunuga markuu shumayo taas waxay ahayd cunuga markuu shumayo cuntooyinka la siinaysid ee hooyada maxaa lahaa cunuga siin karto si uu soo kabsado maxaa la maadaama jirkiisa biyo badan ay ka baxayaan oo kale macaadin ay ka baxayso maxaa lahaa cunuga jirkiisa uu jafaaf naqanayo maxaa ka ilaalinaya maxaa siiyahay cabitaan maxaa cunto ahaan siina hada xagga kaga soo baxno waxyaalaha ay tahay in ilmaha laga fogeeyo kuwa cuntooyinka dheefshiidkooda adag yahay maxaa lahaa oo dheefshiidku dhibka ku ah oo kale in cunuga ka fogeysido adag waxyaalaha saliidda leh in ka fogeysido cunuga waxyaalaha macmacaanka ee sokorta ay ku jirto kale dhamaan difaac jirka hoos u dhigaan cunuga maadaama uu shumayo kale wax sokor la asiisid caloosha way sii socon cunuga difaac jirkiisa hoos u sii dhaca marka wax sokor ku jirto dhan inaadan cunuga siinin oo kale cabitaanadan hadda aan soo sheegno gasacmaanka ku jira inaadan cunuga la siin kuwa gaasaad kale oo aashitada inaadan ilmaha siinin oo kale maxaa la waxyaalaha kafaainka ku jira oo kale inaadan ilmaha siin sida shaah oo kale cunuga duu shumayo waa inaadan shaah siinin waa inaadan shukulaato siinin mid u dambeeyso marka maxaa la ilmaha kulli ma laga wada dhaafi karo laakiin cunuga ina fiirisid waa ilmaha qaar marka shumayaan caanaha iyo waxyaalaha caanaha laga sameeyo shubanku u sii badiya ilmaha qaarna uma sii badiyo marka ilmo u sii badinayo ilmo uusan u sii badinayna jiro ilmaha u sii badinayo shubanka waxa laga yaabaa in marka cunuga uu shumayo maxaa la enzimka loo yaqaan lactase uu shubankii maxaa la dareerihi cunuga ka baxay u raacay marka caanaha cunuga caanaha oo caanaha maxaa la enzimka oo lactase maxaa la burburin lahaa in uu jirka uu ku jirin oo cunuga shubanka u sii bataa laga yaabaa marka waxa sameyn kartaa hooyada ama cunuga qofkii haayo kale wuxuu sameyn karaa cunuga waa ina ku dora caanaha asiisaa oo tijaabisa lian cunuga jirkiisa wax badan ka bixeen marka adiga hadii aadan ogeyn oo kale cunuga caanaha uu ku shumi doono inuu ku shumi doonin waa ina maxaa la marka koobaad asiisa caanaha intuu qaadan jira asiisa hadii cunuga inuu shumkiisa uu sii batay aragtid waa ina caanaha ka deeysa ilaa dhakhtarka ka tagaysid hadii laakiin cunuga caanaha uusan ku shumeynin oo kale oo caadi uu yahay waa siin kartaa marka tan ugu dambeeyso waa jeys oo hooyada cunuga marka aragta ay go'aan ka gaari kartaa maahan waxa la dhahay total iska dhaaf ilmaha qaarna enzymkaas maxaa lahaa uu ku yaraada markii ay shumayaan ilmaha qaarna enzymkaas caadi u yahay hadii cunuga inuu ku yar yahay aragto marka caanaha sii shumayo caanaha iyo waxyaalaha caanaha laga sameeyo sida yogurtka maxaa lahaa subageeda caanaha laga soo saaro dhamaan waxaas aad siinayso waa ina ka goysaa caadi ahaan cunuga markuu shumayo waxyaalaha saliid ah ina ka fogeysid waaye marka intaas aan muuqaalkan kusoo gabagabadeeno soo dhawaada hadii markii kuugu horeysa aan soo booqatay ay subscribe noo saar gambalelkan furo hadaa hore noola joogtane like share si dad badan oo sii gaara muuqaalka soo dhawaada